haddii aad Jarmalka carruur ku leedahay videogan save garayso. Iskuulka ugu horeeya ilmaha la geeyo waa Grundschule, waa dugsiga hoose. 4 ama 6 sano ayaa la dhigtaa, sanadka ugu dambeeyana ayaa sanadka ugu muhiimsan. sababtana waa iskuulka dambe ilmaha la geyn doono Hauptschule, Realschule, Gymnasium ama Gesamtschule ayaa sanadka la ogaan doonaa. iskuulkaasina 4 bay u kala baxaan. waxaa la yiraahdaa weiterführende Schulen. iskuulka waxbarashada ugu hooseeya marka kuwa kale la barbar dhigo waa Hauptschule. iskuulkana waxaa la dhigtaa ilaa klaaska 10aad. iskuulkan waxaa la yiraahdaa Realschule, ka xitaa ilaa klaaska 10aad ayaa la dhigtaa. iskuulka waxbarashadiisa ugu fiican yahayna waxaa la yiraahdaa Gymnasium. iskuulkana waxaa la dhigtaa ilaa klaaska 12aad ama ilaa klaaska 13aad. ilmaha iskuulka dhigta Gymnasiumka dhigta waxaa loo tababaraa sida xirfadaha ugu fiican uu baran lahaa ama siduu jaamacad u gali lahaa. iskuulka ugu dambeeyana aniga soo dhigan jiray waxaa la yiraahdaa Gesamtschule. iskuulkaasina waxaa la dhigtaa ilaa klaaska 10aad, 12aad ama ilaa klaaska 13aad. Gesamtschule horta wuxuu ku fiican yahay abschluss kasta ama shahaado kasta ee laga qaadan karaa. markan anigu iskuulkan ka soo baxay kabacdi jaamacad baan galay. dad badan aan laakiin iskuulka la bilaabay Hauptschule abschluss oo kaliya ayay sameeyeen. waa siduu qofka iska dhigo weeyaan. nidaamka tacliinta Jarmalka Deutsches Schulsystem wuxuu ku fiican yahay waxbarashada mar kastaba dib aad iska saxi kartaa. haddii ilmahaagu maanta uu dhigto Hauptschule, Britole dadaalana shahaado fiican qaatana iskuulka waa laga bedeli karaa, wuxuu gaari karaa ilaa heer jaamacad xitaa. waxa laakiin aad u muhiima waa in carruurta lala dadaalo waliba sanadka ugu dambeeya Grundschule klaaska 4aad iyo sanadka ugu dambeeya Weiterführende Schule klaaska 10aad sida shahaado fiican u qaataan waqtina aanu ka lumin.